barnaamijka waxaan kusoo gudbin doonaa muqaawamada Gaza oo goordhow war ay soo saartay ku sheegtay inay gubeen qaar ka mid ah gaadiidka ciidanka Israa'iil. dagaalo dhacay mar kale galabta ilaa iyo duhurkii ayaa la soo sheegayaa. wararkii ugu dambeeyay arinta waan idin hayaa. Al-Qassam oo jawaab siisay qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iil oo qorayay warbixino ku saabsan soo laba kaclaynta dagaalka culus ee muqaawamada Gaza inay ka dambeysay kadib markii hub qarsoodiga uu ka soo galay dhanka iyo Masar. haddaba sidee wax u jiraan, maxaa ka socda sheekadaas iyana barnaamijkan idinkugu faahfaahin doonaa. Netanyahu xukuumaddiisa oo qarka u saaran inay burburto kadib markii xisbiyo ay ka baxeen. hogaamiyaha mucaaradka oo durbaba bilaabay inuu sheego Netanyahu inuu kala hadli doono xilliga la qabanayo doorasho waqtigeeda kasoo hormaray. haddaba tani ma noqon doontaa tii ay ku tegi lahaayeen Netanyahu iyo kooxdiisa mayalka adag oo markaa xukunka lagaga qaadan lahaa. haddaba warbixintaas waan idiin hayaa. qeybaha dambena waxaan ku faahfaahin doonaa magaalada Dooxa shirkii ka socday ee la isaga dabqaadaya Xamaas iyo Israa'iil. maxaa ka soo kordhay Qatar oo faahfaahin ka bixisay maanta. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena galabnimo idinkugu soo gudbin doonaa. inta aan ku jirnana wixii warar soo kordha waan idinla socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan asxaabay, meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena galabnimo. waa galabnimo Talaado ah. dhowr qodob oo muhiim ah oo ah kuwii soo kordhay taniyo intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka kusoo gudbinaynaa. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa xaalada magaalada Gaza waa sidee. saacadii la soo dhaafay maxaa dhacay, halkee wax marayaan. haddaba muqaawamada ayaa goordhow war soo saartay, waxaana lagu daabacay Al-Jazeera bogooda. waxay leeyihiin dagaal kooban oo maanta dhacay, waxaynu durbaba ku gubnay qaar ka mid a gawaarida gaashaaman ee ay wateen ciidanka Israa'iil. ma garan karno waxa dhintay iyo wax dhaawacmay, laakiin gaarigii waa ku daayay. Allahumma sadid asocod, ilaahayow ku rid haleeshii baalka ku toosi nagta ka saar waay. alaabtaas maba lala gafaaya lagu leeyahay. waxyaabaha la yaab kale ka bitaay. haddaba marka aan idin tusoo goordhow warbixin Al-Jazeera lagu qoray, Saraaya al-Qudus jabhadda la yiraahdo garabka militariga ee Jihaadul Islaami waxay sheegeen inay burburiyeen maanta gaari kuwa gaashaamana oo ciidanka Israa'iil ay wateen deegaanka Khan Yunis. jabhadda la yiraahdo Saraaya al-Qudus ayaa sheegtay inay burburiyeen gaariga militariga ciidanka Israa'iil ay wateen meel ku dhow jaamacatul islaamiyah oo ku taala koonfur bari magaalada Khan Yunis. waxay leeyihiin meeshaas inta ku hel